السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkani waa muuqaal ka duwan muuqaalada kale oo markaasi aan doonay inaan channelka soo geliyo, sidoo kalena ka duwan muuqaaladii hore aan u soo geliyay channelkan. maanta waxaan idin wadaa su'aal uu ku weydiin doono qof waliba oo markaasi aad weydiisato talooyin iyo tusaalooyin inuu noloshaada ku soo biiriyo. waan ogahay waxaa tahay qof dhalinyaro doonaya nolosha inuu horumar ka sameeyo. waxaa jira dad badan oo markaasi role model ku ah, dad aad ku dayato, dad aad markaasi aad jeclaan lahayd maalin inaad la kulanto. sidoo kale waxaa jira dad aad u aragto inay kaaga fiican yihiin filliga adiga aad doonaysid inaad horumar ka sameeyo, mar walbana aad jeceshahay inay talo ku siiyaan. haddaba qof waliba oo aad talo weydiisato wuxuu ku weydiin doonaa hal su'aal oo aan muuqaalkan kugu sheegi doono. muhiimadda su'aashani keliya kuma koobna muuqaalkan annaga aan duubayno, iyo sidoo kale buugaag ay soo qoreen dad cilmiyahana iyo dad saynisyahana. ilaahay ayaa kitaabkiisa qur-aanka inoogu sheegay muhiimadda ay leedahay su'aashan jawaabteeda. haddaba waa maxay su'aasha? ka hor su'aasha intaanan gelin hal tusaale ayaan ku siinayaa. mararka qaar waxaa jira dad badan oo markaasi adiga role model ku ah. maalin ayaad waxaad qorshaysatay in aad ballansato ama aad talo weydiisato qof markaasi aad u arkaysay inuu kaga fiican yahay filliga adiga ku jirto iyo filliga aad u xiisayso inaad horumar ka samaysana aad doonayso, isbeddelka nololeedna aad doonayso inaad ka samayso. markaad hor fadhiisato qofku wuxuu ku weydiin doonaa hal su'aal. su'aashaas waad ka jawaabaysaa. jawaabta aad ka bixiso haddii ay noqoto mid saxan, taladii aad ka doonaysay ayuu ku siinayaa. oo ay ka mid tahay waa inaad xirfada barataa, waa inaad noloshaada horumarisaa, waa inaad business aad samaysataa, waxyaaba noocaas oo la mid ah oo noloshaada ku dhisin kara. balse haddii jawaabta aad ka bixisaa ay noqoto mid qalad ah, talada uu ku siin doono waxay noqon doontaa jawaabta su'aashii uu ku weydiiyey, wax kalena uguma daray. wuxuu ku dhihi doonaa marka koowaad, ma tahay ruux wax akhriya? adigani daawanaya ma tahay ruux wax akhriya? ma akhrisaa buugaagta? ma akhrisaa kitaabada? ma akhrisaa qur-aanka? ma akhrisaa qisooyinka? waxaa filayaa in aad maskaxdaada dib u celisay, sidoo kalena aad is ogaatay wax akhriskaaga heerka uu taagan yahay. aad is ogaatay inaad waxba aqrin. aad is ogaatay inaad wax akhriso. haddii aad wax akhriso waxaan ku leeyahay hambaliyo, waxaa tahay ruux noloshiisa horumar badan ka gaari karo. run ahaantii wax akhrisku wuxuu beddelaa hab nololeedka, hab fikirka qof walba oo wax akhriya. haddii aad doonaysid in aad fikirto, haddii aad doonaysid inaad noloshaada ka beddesho, markood waana wax akhrisaa. haddaba qofkaasi talada ku siinayo oo talada weydiisatay, haddii aad tidhaahdid no aniga wax ma akhriyo, madaxa ayuu xogan doonaa, wuxuuna ku dhihi doonaa ma aqaan si aan talo kuu siiyo maadaama aadan waxba akhrin. please marka hore waynaad wax soo akhrisaa. taas oo sano kumanaan sano ka hor ayuu qur-aankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay muhiimadda ay leedahay wax akhriska. aayaddii qur-aan ee ugu horreysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waxay ahayd iqra bismi rabbika alladii khalaqa al-insaana min calaq. aayaddaas waxaan ka dareemaynaa muhiimadda ay nolosha u leedahay wax akhriska. wax akhrin karto, wax qori karto waa wax muhiima oo aan laga maarmin. balse inaad wax akhriso waxyaabaha aad xiisayso, filliga aad jeceshahay inaad horumarka ka samaydo, haddii aad jeceshahay video editingka, haddii aad jeceshahay graphic designka, haddii aad jeceshahay self developmentga, haddii aad jeceshahay businesska, waa inaad buugaag la xiriira, warbixino la xiriira aad mar walba baarto oo aad wax akhriso. waxaa noo ballamaan muuqaalkan muuqaalka xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.